madaxweynaha Jabuuti ayaa hore u sheegay in Soomaaliya ay ka digtoonaato isbedelka gobolka ee Itoobiya ay horkacayso. Madaxweynaha Jabuuti ayaa loo arkayaa inuu ka cagajiidayay isbedelka ka socday Geeska Afrika, laakiin wuxuu ku adkaysanayaa in iskaashiga dhaqaalaha uu sidiisu yahay. Haddase waxay u egtahay in iskaashiga Geelle uu ka dhigay Soomaaliya uu galayo mid la mid ah kii labadii maalmood socday. Wuxuu ahaa mid lagu soo afjarayay kormeerkii lagu sameeyay hirgelinta qadka. Dhinacyada ay khoseysay waxay ka doodeen waxyaabihii looga soo horjeeday kormeerka iyo xalka dhismaha ay fulin doonto shirkad degan fadhigeedu uu yahay Nairobi, inkastoo dowladda Kenya aysan qayb ka ahayn. Dowladda Jabuuti ayaa hore u muuqatay in ay ka cagajiidaysay isbedelka uu horkacayo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, laakiin dhanka mashaariicda horumarinta waxay u muuqataa in xukuumadda madaxweyne Geelle ay ka faa'iideysanayso. Qadka isku xira Kampala iyo Jabuuti waa midkii afraad oo la qorsheynayo inuu u fududeeyo isku xirka dalalka IGAD. Baaritaankan hordhaca ah ayaa muujinaya in dhaqaale xoog leh lagu heli doono qadadka isku xirka ah kadib marka la hirgeliyo, waxaana hadda laga fikirayaa sidii loo gudageli lahaa qaybaha fulinta mashaariicda. Cabdiqaadir Abdirashiid Xuseen Shiine, JTV, Baydhabo.